بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Cabqari Online Academy YouTube channel. waa channelka Cabqari Online Academy ama YouTube channelka Cabqari Online Academy. channelkan waxaa loogu talagalay dadka af Soomaaliga ku hadla ee daneynaya barashada luqadda Englishka qaybaheeda kala duwan inay si free ah casharo free ah ka helaan. laakiin sida caadiga ah duruusta caadiga ahayd ee kala duwaneed ee dailiga ahayd oo casharada maalinlaha ahayd ee sida joogta casharo loo qaadanayay Cabqari Online Academy ay ka socotaa qaybaheeda kala duwan iyo classyo kala duwan ayaa ka socda insha Allah. certificate iyo diploma lagu bixiyaa qaybahaas kale ee luqadda Englishka ee Cabqari Online Academy ka socota. halkana waa Cabqari Online Academy YouTube channel. waa channelkii Cabqari Online Academy. waxaa loogu bishaaraynaya bulshada Soomaaliya kala duwan inay halkaas si free uga heli karaan casharada kala duwan ee luqadda Englishka bahda Soomaaliyeed afka luqadda Soomaaliya afka Soomaaliga ku hadla ee kala duwan goob walba iyo meel walba ay dunida ka joogaan inay uga faa'iideystaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. waa ka cudurdaaranaynaa muddo 2 week ku dhawaada casharo maana soo dhigin asagoo walba cusba marka insha Allah haddana waxaan dareemaynaa dardar gelina hadii Ilaahay yiraahdo waqti badan juhdi badan aan gelinay insha Allah in bulshada ka faa'iideystaan duruus kala duwan aan soo dhigno insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. ardayda iyo bulshada Soomaaliyeed ee kala duwaneed in la socotay awal subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta hore u siisay waan uga mahadcelinaynaa oo aad ka noola socday bahda cusub ee kala duwan si ay u gaaraan waxaan jeclahay inta daawanaysa ama dhageysanaysa in la share gareeyaan like-ta iyo subscribe-ta si cashar walba oo mar walba la soo dhigo idin soo gaaro. maantay casharka marka insha Allah maanta bixinaynaa ama casharkan qaadanaynaa wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaan verb and tenses ayaan bilaabaynaa insha Allah. verb and tenses kaasi uu socon doonaa qaybo kala duwan ay koorsadaas qaybtaas chapterkaas uu socon doonaa verb and tenses ka marka maanta se bilow ayuu noqonayaa insha Allah. qaybaha kala duwan oo naxwaha ama grammarka ama pronunciation-ka ama dhinaca doon ha noqotee insha Allah qaybaha kala duwan ba xiisado iyo casharo ayaan ka soo dhigi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. marka waa Cabqari YouTube channel Cabqari Online Academy YouTube channel waa ku soo dhawaada cid kasta hore noola socotay oo ku maasan tahay dhageysiga iyo la socoshada iyo casharada iyo subscribe iyo like share-ta inta nagu cusubna insha Allah waxaan leeyahay ku soo dhawaada sidoo kalena share gareeya gaarsiiya bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan subscribe-na dhese cashar walba isla goortii la soo dhigo oo ku soo gaara insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. casharka maanta aan qaadanaynaa waa verb and tense. macnaha verb and tense marka la leeyahayna waa grammarka marka laga hadlayo naxwaha uu kala duwan yahay qaybo kala duwanna uu leeyahay. 8 bar speech-ka luqadda Englishka marka la yiraahdo waa 8 qaybood waa 8 bar speech. waxaa loo sii qaybshaa labo waxaa la yiraahdaa qolo waxaa loo yaqaanaa open word classes qolana waxaa loo yaqaanaa closed word classes. open word classes ka waan arki doonaa qaybta marka introduction of 8 bar speech aan kusoo dhigi doonaa insha Allah. open word class waxaa loo yaqaanaa qaybaha markasta erey kasta cusub uu kaaga iman karo ayaa open word class loo yaqaano. waxaa kamid ah waa noun-ka waa verb-ka waa adjective-ka iyo adverb-ka. afartaas waxaa loo yaqaana open word classes. waa noun-ka noun-kuna asna 50% marka luqadda Englishka laba loo qaybay dhig waa noun 50% noun uu noqonaya. cashka si toosan sharxaadiisa iyo conceptigiisa u qaadan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan verb-ka tuso marka meeshaas. afarta open word class la yiraahdo word class dad maqasho waa 8 bar speech si kala daan u dhaho 8 bar speech labaan qaybinaynaa close 8 bar speech iyo open 8 bar speech ama close word classes ama open word classes. close word class waxaa loo yaqaanaa word class wuxuu la mid yahay 8 bar speech afar waaye waa noun-ka waa verb-ka adjective-ka iyo adverb-ka. haddaba verb-ka aan qaadanayno marka waa open word classes markasta erey kasta oo cusub wuxuu kaaga imaanaya afartaas ama waa noun ama waa verb ama waa adjective ama maxay ahayd waa noun ama waa verb ama waa adverb ama waa adjective. qolada close word class loo yaqaano ama close 8 bar speech loo yaqaano waa afar iyaguna waa afar soo hartay waa pronoun-kii waa preposition-kii waa conjunction-kii iyo interjection-kii. waa pronoun-kii waa conjunction-kii waa interjection-kii iyo preposition-kii. afartaas haddaad barato waa la baran karaa way kooban yihiin wax yaroo kooban waaye haddaad barato hal erey oo cusub kaaga imaan maayo erey kale oo cusub ka sugi maysid bataatanba
saasa waxaa loo yidhi closed word class loo dhahay. qoladana marka open word class maxay noqonee erey kastoo cusub haddaad afartaa barato si fiican oo barato erey kastoo cusub ama waa verb ama waa noun ama waa adjective ama waa adverb weliba wuxuu usii badanaya nounku usii badan sababtoo boqolkiiba konton englishku waa noun, boqolkiiba 25 englishku waa adjective, boqolkiiba 7 englishku waa verb. inta kala qaadanaysa marka wixii soo haray 18 soo haraysa 82 noqon hadii la isku daro nounka iyo verbka iyo adjectiveka 25 meela iyo 50 meela iyo 7 meela 82 boqolkii noqon. inta kale marka saddex hadiiba 82 qaadatay shanta kale waa 18 kale qaadanaysa. marka cashirka maanta aan qaadanayna insha Allah wuxuu ka hadlayaa markaan ka hadlayno wuxuu ahaa verb and tense ayaan dhahnay. verb and tenses kaas contextka qofka danaynaya sida dailyga aan casharada duruusta u qaatan insha Allah WhatsApp-ka iyo Telegram-ka arka shashada ka arka ay naga soo xiriiri karaan insha Allah hadii la helo. cashka maanta qaadanayna waa English and verb and tenses way. aan hore u galno marka insha Allah kinds of verbs noocyada verbs. horta marka hore verb waan sheegay wuxuu ka mid yahay ba speech-ka sidoo qaybood oo gundiga waa luqadda Englishka. marka luqadda Englishka laga hadlayana waxa waaye ba speech-ka waxa lagu kabaa 26 xaraf albeetada luqadda dhan waa intaas waa ba speech iyo 26 xaraf. ilan erey kasta wuxuu ka kooban yahay xarfo, erey kasta waa xarfo ka kooban yahay ama shaqal ama shibana. erey kasta hina ama waa noun ama waa verb ama waa adjective ama waa adverb. erey kasta marka soo qaadato 8 speech mid uu noqonayo ama waa verb ama waa conjunction ama waa preposition ama waa interjection ama haddaba marka maanta waxaan qaadanaynaa verbka inaan concept ka qaadano. marka verb waa falka muujinaya wax tagay iyo wax taagan waa boqolkiiba 7 ka yahay barashada luqadda Ingiriisiga guudba, boqolkiiba 50 ka nounka ah, boqolkiiba 25 waxaan sheegay waxa ah adjective-ka ah. haddaba verbku marka waa falka micnaha dhan jumlada xambaarsan. waxana waa jumlo marka la yiraahdana qaybta ugu muhiimsan ama verbku waa ka midba wuxuu ka mid yahay waxaan hadii la hada calaamatul buluq calaamad qaangaar ka dilay calaamad la yaqaano calaamad la dhigi karo Soomaa. sidoo kale verbka waxaan waa jumlo marka la yiraahdo afar calaamado laga fiirinaya. kow inuu ku xiriyaa waxaan yihiin, labo inay subject leeyihiin, saddex inay verb leeyihiin, afar inay macno dhameystiran leeyihiin. jumladii jiritaankeeda waxaa ka mid inay verb leedahay marka verb muhiimadaas uu leeyahay. verb kinds of verbs-ka there are two kinds of verbs in English. laba nooc ay jirto Englishka verbs guud marka laga hadlayo si gaar ah iyo si hoose iyo noocyo kala la saarkeena transitive iyo intransitive iyo regular iyo irregular iyo waxyaabo noocaas oo sii jiraan state verb waxyaabo arkayna. laakiin marka guud laga hadlayo Englishka there are two kinds of verbs in English. verbka marka awalan laba u qaybsamaya. labadan waa maxay? waa labadan auxiliary verb iyo main verb. verbku awalan labadaas u qaybsamaya. jumlo kasta English ah hadii jumlo kasta waa in verb laga hela sababtoo ah jiritaankii verb jiritaankii jumlada waxaaba ka mid ahaa inay koox eraya tahay, subject leedahay, verb leedahay, macno dhameystiran leedahay. inta marka maadaama aan fahnay jumlo kasta English waa in verb laga hela. jumlan English oo verb lahayn ma jirto. haddaysan verb lahayn wax kale hawlo kale fragments iyo phrases waxbay noqonaysaa marka ama waxyaabo kale noqonaysaa marka in jumlada verb laga helaa. verbka muxuu u qaybsamayaa sida guud verb maxana laba u noqonaya waa auxiliary verb iyo main verb. waa falki weynaa oo main verbka ahaa oo macnaha dhan ee jumlada xambaarsanaa iyo falki caawiyaha ahaa ee auxiliary verbka ah. saasay noqonaysaa marka auxiliary verb waa maxay? waa falki dhamaa oo caawiyaha ahaa. falka dhan oo caawiyaha waxaa loo yaqaanaa auxiliary verb. main verbna waxaa la yiraahdaa falka dhan oo macnaha dhan xambaarsan ee jumlada. haddaan ku iraahdo I am a teacher maxaan layaana meesha fala ku jira, fal ku jirana waa oo ahaansha ah marka waa main verb. I know you waan ku garanaya verb ku jira waa know. She helps me verb ku jira waa help. marka jumlo kasta English waa in verb laga helaa. verb hadii laga helo marka verb hadii laga helo laba mid noqon laba waa auxiliary verb iyo main verb. jumlo kasta English maxaa dhaanay verb ay leedahay. muxuu qaybsamayaa verbki marka laba u qaybsamaya oo kala auxiliary verb iyo main verb u qaybsamaya. okay waa fahn auxiliary verb iyo main verb. one auxiliary verb waaye position ahaan markaas jumlada Englishka verbku wuxuu ka leeyahay position. boos uu ka leeyahayna waa on the left.
markasta jumlada English ama chief ama soco ama taagnaaw gacantaada bidix aawayso gacantaada bidix ma lihid gacan bidix ma lihid gacanta bidixda feebka xiga waa auxiliary markastana gacanta midigta feebka xiga waa maxay waa on the right waxa iskala main verb haddaan ku yiraahdo I don't speak English ana English kuma hadlo yaa bidixda xiga don't yaa midigta xiga speak maxay noqonay marka bidix soo ma xigto go'aanka qaadanayso iska cadday marka auxiliary waa markasta jumlada haddii laba verb leedahay midna waa auxiliary midna waa main verb boosinaana maxaa waa bidixda ka fiirinay you told me lie beenad ii sheegtay told marka la yiraahdo halka verb ku jira waa told auxiliary ma yaalo told maxay noqonaa marka main verb ay noqonaysaa marka haddaba marka auxiliary verb ka position muxuu leeyahay on the left uu leeyahay maxaa loo soo gaabshay av main verb ku muxuu leeyahay position on the right uu leeyahay maxaa loo soo gaabshaa mv waan faano maana verb ka laba loo qaybshay English laba verb leeyahay auxiliary verb main verb markasta oo tense-kan hadda aan sharaxi doono ama verb and tense-ka aan bilaabay tense-da waa sharaxi doona hadii la mid markasta waxa la baran doono oo socon doono wax kala ma waa auxiliary main verb la baranayna jumlo kastoo tennis kastoo loo tago auxiliary main verb loogu tagaya laakiin maxaa waa isagoo doorsoomay oo suurad ahaan isbedelan ugu tagaynaa mooyaane magac kale aan auxiliary main verb ahaan qaadanaynaa ma jiro marba tense baan tagno magac kale aan auxiliary main verb ku sheegaynaa ma jiro markaas auxiliary main verb ma sheegaynaa laakiin maxay noqonaysaa suuradii oo shalay ku joogay xagga maanta uu ka duwanaanaya kaliya laakiin auxiliary main verb kuma sheegaynaa haddaba marka auxiliary-gan waxaa concept ka bixinayna auxiliary verb is a helping verb maxaa la auxiliary verb-ku waa is helping verb oo fal caawiya which kaasoo helps caawiya the main verb shaqadiisu waa intaas auxiliary verb-ku sidiisaba waan qaybin doonaaye walow auxiliary-yaasha qaar ay wax u wehliyaan auxiliary waxaa jira loo yaqaano markaan kala qaybino auxiliary saddexa loo qaybshaa sometimes laba loo qaybshaa saddex marka loo qaybinayo waxaa lagala jeedaa primary auxiliary koo la yiraahdo qolo loo yaqaano modal auxiliary qolo loo yaqaano preferred auxiliary saddexdaas loo qaybshaa auxiliary verb primary auxiliary iyo modal auxiliary iyo preferred auxiliary sometimes preferred auxiliary iyo primary auxiliary la isku daraa markaas waxaa la yiraahdaa primary auxiliary iyo modal auxiliary laasna waa la dhahaa sometimes boogu sharaxaysa way jiraan ama qaabkaasna waa loo sharaxaa sometimes waxaa la yiraahdaa laba waaye waa primary auxiliary iyo modal auxiliary sometimes saddexa laga dhigaa waa saddexdan uu sharaxi doonaa jeedii ilaahay yiraahdo haddaba eeg auxiliary verb is helping verb waa fal caawiya which helps the main verb kaasoo caawiya falka weyn shaqo kale ma qabanaya isagu shaqadiisu waa inuu caawiyo falka weyn walow arki doono qolada modalka ah auxiliary-nimada ay wax u helin doonaan sida awood iyo waajib iyo permission iyo possibility oo arki doonaa laakiin auxiliary waa caawiya falka weyn okay meesha waxaa noo yaala 1v / o 0 av waxaa laga wadaa haddii jumladu hal verb leedahay halka verb waa maxay wuxuu noqonayaa waa main verb auxiliary waa maqan yahay ilaa maxay awal ku sheegnay waxaan awal sheegnay jumlo kastoo English waa inay hal verb yeelataa jumlo kastoo English maxaa la waa inay laba verb mid yeelataa ama laba verb laga wada helaa laba verb bis jumlad English laba verb leeyahay marka koowaad auxiliary verb main verb haddii jumlo hal verb leedahay zero auxiliary waa zero evertas waxa waa zero auxiliary verb even auxiliary ka soo gaabinay halka verb waa main verb haday laba verb jumlo leedahayna hal xaba auxiliary ah kalena waa main verb saddex verb haday leedahayna laba auxiliary ah afar verb haday leedahayna maxaa waa meesha qalad jira afar verb haday leedahay saddex auxiliary aan kala jeedo meeshan evertas saddex waa ya meeshan evertas saddex waaye afwan aan ku laabano meeshan everta maxaa waa saddex marka meeshan everta marka waxaa laga rabaa inay saddex noqoto ustaad 3 laga rabaa haddaba marka saddex laga wada rabaa marka waa kana marka meeshan afar verb saddex auxiliary verb taala maxaa afar auxiliary verb markas hal main verb ay leedahay jumladu ay hal verb ay auxiliary zero laba laga rabo ilaa mogt laba taala midna auxiliary midna waa main verb saddexa taala labana waa auxiliary midna waa maxaa waa saddexa taala labana auxiliary midna waa main verb afar taala saddex auxiliary shana taala maxaa waa afar auxiliary verb exampleski markaan aragna marka she is sick iyadoo ay xanuunsan tahay istaas meesha taala iyadoo baa ka verb hadda verb kale ma jiro
haddii iyadoo verb ka tahay micnuhu maxaa waaye marka it means auxiliary ma jiro main verb waa haddii hal verb jumlo ku jiro auxiliaryga maqan auxiliary waa la weyn karaa waa yaraan karaa waana badan karaa laakiin ciddaan yaraan karin la weyn karin maqnaan karin ayaa islafti waa badan karaa ma la weyn karo haddii la waayo jumlada main verb micno dhanaa maqanba markaas hal jumlo auxiliary jiro ama jumlad auxiliary kaligiis taagan yahay waxaa laga arkaa kaliya marka short answers kala isticmaalo yes I do yes I will yes I can yes I have markaasna waxay u taagan tahay laftigeeda main verb u taagan tahay markaas auxiliary isagu waa caawiye waa inuu ag taagnaadaa la jooga la shaqeeyaa main verb marka she is sick hal verb ku jira waana main verb they have done something waxbay sameeyeen laba verb taala waa done iyo halfta kalaran u sameeynay underline ka dhigna waa auxiliary waa laba verb taala waa done iyo half maxay noqonayaan marka gacantada bidix aaw waa tana halfta xigta gacantada midig aaw dhan haye dhanta xigta maxaa waa main verb saasa kala xukminaya he didn't tell anything waxa ma sheegin isagu laba verb taala waa didn't iyo tell didn't maxay noqonaysaa marka waa auxiliary waxaan ku cadeynaya gacantada bidix aaw soo xagga ma xigto tellna maxay xigtaa midigta auxiliary waa marka bidixda didn't marka ila laba verb meel tell waxa mid auxiliary midna waa main verb he didn't tell anything waxa ma sheegin we shall have told you aan ku sheegnay adigu aan ku sheegi doonaa aan dhahe we shall have told you aan ku sheegi doonaa jumladan saddex verb ay leedahay waa shall iyo have iyo told aad baan uga xumahay shalta inaan kala riyo hoosna ka xariiqayahay laakiin fahma shall iyo have labadan waa auxiliary sababtoo meeqa verb taal waa shall iyo have iyo told ayaa taala labada bidix saddex hadii taal maxay balanto ahayd laba kamid ah auxiliary labada bidix inta labadee waa shall iyo have anaa ka hilmaama colorka iyo underline-ki marka shall iyo have auxiliary sababtoo bidixda xigaan told midigta xigaan wax ka dambe verb kale kama dambeeyo wax waa ka dambeeyaan laakiin verb kama dambeeyo verb ka dambeeyo iyada main verb marka haye the man was running ninkuu ordayay was maxay noqonaysaa marka i running labada verb soo ma was ayaa auxiliary ah haye it will have been working well si fiican ay u shaqeyn doontaa it will have been working well si fiican u shaqeyn doontaa tense-kan afar verb u leeyahay waa will jumladan ay raahday afar verb ay leedahay waa will iyo have iyo been iyo working will iyo have iyo been iyo working maxaa waay afar verb waay afar haday meel tal balantu maxay ahayd saddex ayaa auxiliary saddexdee waay waa will iyo have iyo been halka xabo soo harnaya waay waa working waa main verbki marka haye the girl will be ready gabar diyaar noqon doonta laba verb taal meeshan waa will iyo be laba haday tal balantu maxay ahayd mida auxiliary midkee waay bidixda yaa xiga gacanta bidixaa bidixda yaa xiga will xigta gacanta midiga be xigta be waa main verb marka be da laftiga mid auxiliary noqonaysa jira hadii main verb kale xag ka sii maro auxiliary noqonaya be daas I'm busy fiiri marka mashquul anahay hal verb ayaa yaala busy waa sifo verb kale ma balantu maxay ahayd hal verb haduu yaala auxiliary ma jiro meesha waa maqan yahay waa main verb haye the engineer has been building this house engineerku wuxuu dhisayay gurigan engineerku wuxuu dhisayay gurigan haddaba meeqa verb taal marka saddex verb taal has iyo been iyo building saddex verb maadaama ay taalo balanta aan soo balana maxay saddex verb ay meel taal maxaan ahanay waa labo ayaa auxiliary ah midka kale maxaa waa main verb midkee waa markasta midka midig xiga haray midigta xiga building ayaa auxiliary ayaa main verb marka have has iyo been maxay noqonayaan waa auxiliary haddaba waxaan u malaynayaa inaan concept aan fahanay haddii 9 iyo 10 verb meel yaalaan hal xaba main verb 10 ziyada kale auxiliary haddii 20 meel taal 19 auxiliary haddii 30 meel taal maxaa 29 auxiliary haddii 40 meel taal maxaa 39 ayaa auxiliary verb halka xabana waa main verb waxaasoo tiro badan arki mayno oo verb saas u badan laakiin waxaan ka wadaa concept verbka ugu badan tense ugu badan waa future perfect progressive tense waa kan will have been saddex auxiliary ayuu yeelan karaa jumlada ugu badan waxay yeelan kartaa afar verb haddaba marka saddex ayaa auxiliary noqonaysa marka 10 iyo 50 marka aan leeyahay waa example aan ku siinaya laakiin tira auxiliary noocaas inta slaag ma jiri doonaan marka haddaba casharkeena maanta aan qaadanay oo ahaa verb maxaan ku sheegnay laba loo qaybshaa wala labada maxaa waa you kamid yahay hor aid by speech you ka sii mid yahay marka qolada open word class la yiraahdo oo nounka iyo adjective-ka adverb-ka iyo verb-ka ayuu kamid ayaa verb-ku kamid yahay open word class Allah qoladan kalena close word class Allah waa kamid ah waa preposition conjunction interjection-ka iyo preposition-ka kuwaas hadaa barato erey cusub ka imaamay kuwaas hadaa barato kuwaas laakiin maxaa si kale oo barato maxaa erey ka socso ayuu ka imaanaya haddaba casharkeena maanta channel-ka Abqari Online Academy ad ku qaadanaysaan insha Allah kuna soo idinku soo diyaarinay halkaas ayuu noogu eegay insha Allah casharkeena xiga auxiliary-ga qaybihiisa kala duwan ayuu noo noqon doonaa insha Allah hadii la yiraahdo waa ustaad Cabdinuur Maxamed Samata ustaad Abqari Online ku soo dhawaada
fadlan shareta like-ta iyo subscribe-ta si aad mar walba casharada la soo dhigay aad u hesho insha Allah inaad ku dadaasho bulshada kale oo baahida luuqadeed qabto oo danaynaysana si ay u gaarto insha Allah waadna ku mahadsantihiin dadaalkiina iyo share gareynta iyo like-ta iyo intaba aad maaragtay sameysaan waan idinku mahadcelinayaa oo bilaa tawfiiq duruus kala duwan iyo casharo kala duwan oo aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed qayb kastoo ay ka joogaan dunida insha Allah way ka faa'iido doonto ayaan ku soo bandhigi doonaa waa walaalkiin oo Ustaad Cabdinuur Maxamed Samantar Ustaad Cabqari idin leh soo dhawaada channelku waa channelkiini ka faa'iideysan insha Allah bilaa tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.